شرف إيتا مانتنا إذا إماد وحوين يرجوين على ذنك قبا دذل كان لذنكو بحيي يو شقدان أقبتين يتوبرك أقاتين إن قف صومالي أكوبت بادو وكنا متقلو أيا لذنك ربا أنا جا رنتي وحبا وحا محكمتها إنه ما شغال لقبتي عدوى للدلي هالكاس مركز نقطة ماد وعن سمين إن دولة هي هذا إن قف أو حيرالية أو شرعية قانة أو دنبيلها إن الدشان إذا الله خبيه إن إذن كانوا أو إذا كان شقي وحسبت لك إن ما أنت سواء إن كان هذا محلي هذا ما هذا كان جوكتو سي شقد اللي قبتي وذلك اللي جوب بحيي أو اللي دبق علي أو اللي فوليي أو نوع جسياشين أو بررتين وأدين إن سنهدوا الدعوين يبوق يمرن هبابين إسكوب الدلين أيام وحن ديارنا إن قف شرعية قانا أو كتر سن سبيشال كا أو لا شقية أو فرفات جريء قفك فيصلين وحلا جري واحدين فيصلية قفك عدو وركان مضى ما أنفع كقبت إذا ده إن سمينه إذا كلا شقية أيام هذا أو ما نمشاني رنتي إذا كو مركز وجلس والدورشوا لكن مركز شقينيسي وكد وين هي أده كله دولة أو أما إذا كأنا هنا سيبل كأ مركز الله شقينا هذا وجد وين محايا الوقت جاقدن دذل كاقدن كرتيدا ضدنا اللي جنبها هي ماشان مر وقتي في كل دوين وليها وقتي ووقتي حسرته جرين أي نبض جرتو وقتي جالس نظامك حرارك أوبريشنك هبراعيد عيدا كعلى برتاع مركي حسرته جيران أي لو بهاي أتكيسي يهنان يدعى نمو إن أو بوقة ماشى دجالك ماشى كده عاي وصن كقاعدين حكمة ده ومركز تقف صومالي أو قف كل جوتير سنة هاي هاتال الربع واحد بدن هذا dadkiina halkan jooga waa kala duwantiin qof kasta qofka dhinaciisa fadhiya haduu fiiriyo ku deegaan maaha ku qaraabo maaha ku gobol maaha waxa isku kiin keenay oo halkan isku kiin keenay carajeef kale idin ka dhigay isku ujeedadan idin ka dhigay waxa waay inaad dalka aad difaacdaan oo dadka difaacdaan oo dhiigiina iyo tabartiina iyo awoodiina lagu soo jeedo waay marka ciidanka waxa ugu horeyso qofka walaalka dhinacaaga fadhiya ka baranaysa wada noolaashay ciidanka waa wada noolaalahaydeen waxa ka baranaysaan kala sareynti waxyaabaha aan la gorgortamani kamid tahay nidaamka kala sareynta iyo in la ilaaliyo rajada weyn oo la qabana Soomaaliya ay qabtana idinka waay dadkina isbishaalka ah ciidanka gaarka ah rajada ugu weyn oo dalka u qabo ayaa tihiin ciidanka dhammaan rajo laga qabaa sida kuwa gaarka looga qabo ayaa tihiin kala sareynta in la ilaaliyo anshaxa la ilaaliyo oo hogaansanaanta iyo qofka marka uu joogo xerada iyo marka uu xaafadiisa joogaba inuu isku si u hogaansan yahay hal rabaa oo marka la arkayana wax fiican sameeynin marka la arkeenin wax sameeyna taasa la diidaa ciidanka marka uu banaanka joogo qofka caadiga ah oo aan ciidanka ahayn ama xitaa qofka ciidanka kala ah ciidanka isbishaalka qofka tirsan inuu ku daydaal raba oo markay safkan saas loogu jiro kaliya ma ahayn marka xaafadaha joogan iyo markay baabuurta raacayaan iyo markay caruurta la joogan iyo waalidka la joogan in laga dareemo hogaansanaanti iyo disciplineki iyo akhlaaqda in laga dareemo la rabaa sharaf iyo karaama iyo tahruntii inaan ciidanka gaarka maanta hortaaganahay wax weyn la idinka sugaa waxaan guuleysanaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo dadaalkiina iyo maxadhiiranaantiina iyo daacadnimadiina marka la isku daro Soomaaliya way guuleysanay waana wada guuleysanaynaa xoogga dalka waa guuleysanaa ciidanka gaarka waa guuleysanaa danab ha guuleysato aad u maasantiin sharaf ay tahay